kulanti wacan oo wanaagsan soo dhawaada daawadayaal warar degdeg ah ayaan idin wadaagi doonaa. Qodobada wararkan waxaa qayb ka noqonaya ciidankii markaasi ugu badnaa oo ka tirsan beesha Mursade oo markaani ku biiray ciidanka beesha Arti Abgaal uu hogaaminayo taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka General Odwaa Yuusuf Raage. haddaba maxay tahay sababta markaani ciidanka beesha Mursade ay ugu biireen ciidanka beesha Arti Abgaal ee ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe? Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe ahna hogaamiyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo magaalada Baydhabo isaga soo cararay isagoo soo galay magaalada Muqdisho kadib markii culeys xoogan uu kala kulmay ciidankii taabacsanaa lafta garan ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. magaalada Cabudaq waa ay foolanaysaa sidoo kale waa ay circiiraysaa kadib markii israsaaseyn xoogan ay ka dhacday. haddaba waxaan kula wadaagi doonaa maxay tahay sababta keentay in israsaaseyn ay ka dhacdo magaalada Cabudaq ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug. qodobada kale waxaa qayb ka noqonaya maamulka Jubbaland ee hogaaminayo Axmed Islaam Axmed Madoobe oo markaani beesha caalamka u gudbiyay dacwad ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya. haddaba maxay tahay dacwadda ay gudbiyeen maamulka Jubbaland maxay salka ku haysaa ayaan kula wadaagi doonaa. xogo iyo sidoo kale macluumaad dheeraad ah oo intaas ku saabsanna waan kula wadaagi doonaa saaxiibayaal. balse haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqato fadlan YouTube-keena subscribe saar, gambaleelka furo, muuqaalkana like saar, like meel dheer ay gaarsiisa muuqaalka. wixii fikirkaaga ahna qaybta hoose ee faalada noogu reeb. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena. mahadsanid daawade aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya. ciidan markaasi ka tirsan beesha Mursade uu ka soo jeedo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ku biiray ciidanka beesha Arti Abgaal oo markaasi hogaaminayo taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka General Odwaa Yuusuf Raage oo saldhigyo waaweyn markaasi ku leh gobolka Shabeellada Dhexe. haddaba maxay tahay sababta ugu weyn oo markaasi ciidanka nin ka tirsan beesha Mursade ee ugu biireen ciidanka markaasi Arti Abgaal ee ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe? iyadoo sidoo kale xogo iyo sidoo kale macluumaad dheeraad ah ay ka soo baxayaan kadib markii ciidankani ay ku biireen ciidamada halkaasi markaasi fariisimo waaweyn ku leh. sababta ugu weyn ayaa lagu soo waramayaa in ciidankani oo ka godowsan weerarkii lagu qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre dagkaasi oo markaasi dagaalkaasi ka dhacay xaafadda markaasi xildhibaan Jacfar uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. sababtaasna ayaana lagu soo waramayaa in ciidankani ay ugu biireen markaasi ciidankani markaasi ka tirsan beelweynta markaasi Arti Abgaal oo markaasi hogaaminayo taliyihii hore ee markaasi ciidanka xoogga dalka. ciidankan ayaana lagu soo waramayaa in ay gaarayaan ilaa iyo sidoo kale 300 oo askari iyagoo markaani wata gaadiidka gaashaaman iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan. iyadoo sidoo kale xogaha iyo sidoo kale macluumaadkan helayno ay warinayaan in ay ciidankani wataan ilaa iyo sidoo kale 20 gaari oo markaasi cabdibilyaal ah iyagoo markaani ku sugan meel 40 kilomitir u jirta markaasi degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. ciidankana ayaana lagu soo waramayaa in ay haatan markaasi si toos ah ugu biireen ciidankani markaasi ka tirsan beelweynta Arti Abgaal. iyadoo markaani dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay ay ku lowlaneed in markaasi culeys xoogan ay saarto sidoo kale markaasi mas'uuliyiin ka tirsan kuwa mucaaradka oo markaasi ay ugu horeeyaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. iyadoo markaani ciidankani ay ka godoodeen weerarkii lagu qaaday ogaaska guud ee beesha Mursade iyo sidoo kale markaasi ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. sababta ugu weyn ayaa lagu soo waramayaa in ay tahay markaasi in ay ka xun yihiin weerarkii dowladdu ay ku qaaday markaasi ogaaska guud ee beelweynta Mursade iyo sidoo kale musharax Xasan Cali Khayre. ciidankan ayaa haatan lagu soo waramayaa inay halkaasi si toos ah ugu biireen markaasi ciidankani markaasi Arti Abgaal ee markaasi fariisimahooda uu yahay gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Cadale aaga u dhow markaasi magaalooyin u dhow. markaasi qodobada kalena markaasi waxaa qayb ka noqonaya hogaamiyihii markaasi dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo markaasi isaga soo cararay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo markaani soo galay magaalada Muqdisho ee markaasi xarunta markaasi ama caasimadda ahna markaasi Soomaaliya. Aadan Madoobe ayaa lagu soo waramayaa sababta ugu weyn oo markaasi isaga soo cararay magaalada Baydhabo in ay tahay kadib markii culeys xoogan uu kala kulmay ciidankii taabacsanaa lafta gareen oo markaasi iyagu ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. ciidanka taabacsan lafta gareen marba waxaa laga filan karaa markaasi inay duulaan ku soo qaadaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagoo markaani ciidankani lagu soo waramayo in mootooyinka loo yaqaano fekonta ay markaasi ku soo galayaan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
baydhabo waxaa ku sugan markaasi ciidan ka tirsan haramcad iyo sidoo kale ciidan booliis military iyo sidoo kale ciidan markaasi dowlad goboleedka koonfur galbeed kuwaasi oo lagu magacaabo daraawiishta koonfur galbeed Soomaaliya halkaasna markasta waxaa laga filan karaa markaasi in ay ka dhacaan markaasi duulaan xoogan oo u dhaxeeya ciidankii taabacsanaa lafta gareen iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya aadan madoobe ayaana lagu soo waramayaa in kulmo kala duwan magaalada muqdisho uu ku qaadanayo markaasi madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee xasan sheekh maxamuud isagoo markaasi talooyin markaasi ka qaadanaya waxa laga yeelayo ciidankan markaasi taawacsan lafta gareen ee markaasi ku sugan duleedka magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya cabdicasiis maxamed lafta gareen oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi caasimada dalkaasi Kenya isagoo halkaasi baalmudo ku ah halkaasna ayuu awaamiir kala duwan ka soo siinaya ciidankan markaasi ku sugan duleedka magaalada baydhabo ciidankan waxa uu hogaaminaya wasiirkii hore ee markaasi amniga koonfur galbeed xasan cabdulqaadir iyo sidoo kale afhayeenkii markaasi cabdicasiis maxamed lafta gareen kaasi oo markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay ka ceersatay magaalada baydhabo isagoo markaasi galay dalkaasi Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi caasimada dalkaasi Kenya cabdicasiis maxamed lafta gareen ayaa kulamo markaasi gooni ah waxa uu markaasi Nairobi kula yeelanaya markaasi siyaasiyiin ka soo jeeda koonfur galbeed isagoo markaasi shirar kala duwan halkaasi kula qaadanaya markaasi siyaasiyiinta shirkaasna waxa uu ku saabsan yahay sidii cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen oo markaasi dib ugu soo laaban lahaa magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya sababta ugu weyn ee markaasi ciidankan taawacsan lafta gareen ay magaalada baydhabo soo weerarayaan waxay tahay in ay ka saaraan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Sheekh Aadan Madoobe oo ah haatan hogaamiyaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyagoo haatan lagu soo waramayo in marka ka sii dambeeyo ciidankii taabacsan lafta gareen ay helayaan markaasi gurmadiyo xoogan kuwaasi oo markaasi ka goosanaya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada baydhabo iyo sidoo kale markaasi ciidankii markaasi daraawiishta koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo ciidankan marka ka sii dambeeyo ay ku soo biirayaan taliyaal markaasi hor leh oo markaasi ka gadoodsan markaasi xasan sheekh maxamuud waxa uu ka wado magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya aadan madoobe ayaana haatan hogaamiyaha cusub ee markaasi dowlad goboleedka koonfur galbeed kadib doorashadii ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya aadan madoobe haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho isagoo markaasi kulamo kala duwan la qaadanaya wasiirka xukuumadda federaalka Soomaaliya ee dekedaha cabdiqaadir maxamed nuur jaamac xasan eela iyo sidoo kale markaasi mas'uuliyiin kale oo markaasi ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo ka soo jeeda markaasi dowlad goboleedka koonfur galbeed lafta gareenna waxa uu doonayaa inuu mar laba dib ugu soo laabto magaalada baydhabo si uu markaasi halkaasi ugu soo bilaabo markaasi hogaamintiisii 7 sano ahaa ee markaasi uu joogay xilka ama markaasi hogaaminta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobada kalena waxa qayb ka noqonaya magaalada Cabudwaaq oo ay foolanaysa sidoo kale waa ay ciiraysaa kadib markii halkaasi laga dareemayo markaasi saansan dagaal iyadoo markaasi halkaasi ay ka dhacday israasaaseen xoogan oo markaasi u dhaxaysa ciidan markaasi taawacsan hogaamiyaha markaasi galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo sidoo kale ciidan markaasi taawacsan musharaxa galmudug Liibaan Shuluq oo xalay markaasi xalfad markaasi caleemasaar ama soo dhaweyn ay ka dhaceysay gudaha magaalada Cabudwaaq ee markaasi dowlad goboleedka galmudug israasaaseen xoogan ayaa halkaasi ka dhacday taasi oo u dhaxaysa markaasi ciidan taawacsan labada musharax ahna markaasi hogaamiyaha dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale Liibaan Shuluq oo ay wadato dowladda federaalka Soomaaliya oo isagu markaasi halkaasi ku doonayay inuu ku soo bandhigo hadii uu noqdo hogaamiyaha dowlad goboleedka galmudug waxa uu qaban doono iyo sidoo kale ujeedooyinka uu ka leeyahay markaasi xilka markaasi dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxa uu doonayaa markaasi in guud ahaanba Liibaan Shuluq uu meesha ka saaro isagoo markaasi iska indhatiraya doorashooyinka qofkii codka ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inay ka qabato dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor khilaafka u dhaxeeya dowladda iyo isagu maalmihii ugu dambeeyay cirka ayuu isku sii shareeraya isagoo haatan markaasi dowladdu ay doonayso in markaasi la xaliyo khilaafka u dhaxeeya Axmed Cabdi Kaariye Qorqor isaguna uu diidan yahay markaasi in uu haatan barmiiska wada hadalka uu la fulo xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale xulufadiisa guud ahaanba Cabudwaaq haatan waxa laga dareemayaa markaasi saansan ciidan iyadoo markaasi qarka u saaran marba ka sii dambeeysa in halkaasi uu ka dhaco dagaal xoogan oo u dhaxeeya markaasi Liibaan Shuluq iyo sidoo kale markaasi ciidan taabacsan markaasi hogaamiyaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor